daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku saleysan ee aanu sida joogtada halkan idinku la wadaagayno. dowladda Soomaaliland ayaa cambaaraysay hub ay sheegtay in dowladda Masar ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatiye Fariid oo qoraal ku baahiyay barta oo ku leeyahay Twitterka waxa uu sheegay in Soomaaliland aad uga warwarsan tahay sida ay dowladda Soomaaliya ugu xadgudbayso cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu saaray. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland ayaa qoraalka uu ku baahiyay Twitterkiisa waxa uu ku yiri dowladda Soomaaliland waxay aad uga warwarsan tahay dowladda Soomaaliya sida aanay u fulinahayn cunaqabateyntii hubka ee qaramada midoobay ay saartay. wasiirku waxa uu si gaar ah u cambaareeyay dowladda Masar oo uu sheegay inay hub ugu deeqday dowladda Soomaaliya arrintaasi oo uu xusay inay khatar ku tahay amniga guud ee gobolka. waxaana uu yiri waxaanu cambaareynaa dowladda Masar oo ku xadgudubtay cunaqabateynta hubka ee saaran dowladda Soomaaliya. wasiirka ayaa qoraalkiisan waxa uu ku sii daray waxaanu arrintan u aragnaa inay khatar weyn gelinayso nabadda iyo xasiloonida gobolka. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatiye Fariid waxa uu qoraalkiisa uu ku baahiyay barta Twitterka oo ku raray warqad leh astaanta dowladda Soomaaliya ayna ku qoran yihiin liiska hubka kala duwan ee Soomaaliya ugu deeqday dowladda Masar, taasi oo sidoo kalena lagu xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay hub ka heshay dowladda Masar.